xaflad ballaaran oo kulmisa dhammaan qaybaha kala duwan ee jaalada Soomaalida ee ku dhaqan waddanka Australia ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Maxamed iyo Bruce Baadiyo. xafladda ayaa u dhacday sidan tani. Soomaalida waxaan ka soo jeedaa mabaadi'da Prime Minister Hebel waa la wataa madaxweynaha Ethiopia waa wata Prime Ministerka Talyaaniga waa wata ilma adeerayaal hadda siyaasiyiin taa waa naga dhabaata waa inaan helnaa qalbi Soomaali ah nin ku soo baxay oo qalbi Soomaali doonata taasa ahaan karta qaran Soomaaliyeed soo celin dawladdii waxaa qaban lahayd ayaa la qabaa ma aha dawladda Soomaaliya maanta looga baahan yahay dawlad dadka u baahan iyada oo dadka wax ka raadinaysa waa dawlad dadka u adeegta inay hesho Soomaalidu waxay u baahan tahay dawlad dadka u adeegta marka babada inay rajiye karaan aan tijaabina inay bal wax ka bedeli karaan wacyiga aan tijaabino oo ku nasiibsano waa mahadsantihiin soo dhawaada wuxuu rabaa inuu lacag yeesho inuu madaxweyne noqdo inuu Prime Minister noqdo marka iimaanka halkaas naga aado waxa ay ka codsanayaa Baadiyo iyo Cabdiweli iyo wixii madaxweyne noqonayo doorashooyinka ku jira Soomaaliya dhan waa isugu kaaya mid qofkii Ilaahay siiyo oo maanta ku guuleysto inuu inta istaaga yiraahdo Ilaahu Soomaali iimaanka u soo celi Rabbi Soomaali iimaanka u soo celi ما تعشيرات باترتو كل تود وحنا طبعا عرضوا وحنا طبعا ملح حتى شيء عقلي حاجة وتجنا تات كان يندحيا تين قر عليه تكرت عن بشرة تونك كجد جنا لا توري نسيو تاه ميا كاري حتى شيء عقلي حاجة وتجنا تشويش كان فراني مسكحري لا تجي سنسيالية تبعها متعدي يدب كان تاكد النقطة لو توليه حتى شيء عقلي حاجة وتجنا دين كان لقيت من تفسير كان بطيء قفتيس أمر الهبة كي صيلتها هي توبة الله لقيت جيدي حتى شيء عقلي حاجة وتجنا Bruce Baadiyo ayaa sheegay in dhibaatada Soomaalidu aynan ahayn qabiil iyo qabyaalada ay tahay afar wiil iyo aabahood wasoo hadalka u dhigay Allah yaable intaas ka bacdi mudadaas dheerta aan burburku ma haysto inaana wali isku waafaqsanin maxaa mushkilada maxay oo qof kasta soo rabo sheegay marka waxaan rabaa si kooban waxaan idinku sheegayaa mushkilada haysata maxay dadka Soomaaliyeed markay hadlayaan siyaasiyiinta gaar ahaan iyo dadweynaha afkana loo geliyay muddo dheer lagu soo wada waxa waaye mushkiladani waa qabiil iyo qabyaalad taas ma oo caawadan inay rawaa been ka warama may aaminaysan caawadan inay rawaa qoyahan hay intaasaan darsaay qabiil waa been qabyaalada Soomaaliya burburaysa qabyaalada ku dheesha waa been waa afar waa basaasnimo waxaa lagu leeyahay dad wax raatira dawladda waa maxay jaasus ana taasoo dawladda u shaqeysa marka waxa waaye basaasnimo marka waa boob waa beec waa been waa basaasnimo وأفر دلوا يا أنا هاي أبغى هاي ملا يا هاي ملا يا دلي وحال هذا نوين أو لرا مستر كاف على واقع التريق ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Maxamed ayaa sheegay in xalka Soomaaliya ku jiri Amazon si joogta Soomaaliya nabad ka horeeya oo shaqo hor dhici karta miyay jirtaa nabadaas waxaan idin sheegaynaa Amazon ma keeni karto Amazon ma keeni karto Amazon meesha danahooda inuu joogaan waa la kaalmeeya laakiin Amazon xalka ma aha oo wallaahi xalka ma aha والأوبك حوالها وإنا بسنا عيدا قرن الصوماليات عيدا قبيلة gabagabadii xafladan ayaa jaaladu ka soo saartay murtiyeed ka kooban 5 qodob in hadda iyo wixii ka dambeeya
maalinta qarannimada Soomaaliya ee 1 July si wada jir ah loogu qabto magaalada Melbourne ee waddanka Australia. In Soomaaliya ay ka gudubto nidaamka 4.5 ee aynu ku soo caanamarnay loona gudbo doorasho xor iyo xalaal ah iyadoo diasporaha ama jaaliyadana laga qayb gelinay. Guuleed Cabdi Wahan, Hoon Cable TV, magaalada Melbourne ee waddanka Australia.